رأيت النور يخرجه إلى الإنسان يفهمه بأن الحق يرفعه ورب العرش ينعمه. رأيت النور يخرجه إلى الإنسان يفهمه بأن الحق يرفعه ورب العرش ينعمه. قوي في حكايته وسام في. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني في الله، waxaynu ku jirnaa xalaqaadkeena nuurul qur'aanka iyo nuurkiisa ilaahayna ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inaynu mugdiyada ku iftiinsanno. mugdiyaad fara badan baa adduunka jira, aakhirana sidoo kale mugdiyaad baa jira. ilaahayna na abuuray subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay mugdiyaadka addoomihiisu inay kaga baxaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qur'aanuna nuurun wadistoorun lana wabihi xayaatu ruuxi walabdaani. qur'aankeenu waa nuur, waa distoor aynu ku soconayno, ilaahay noogu talagalay inaan ku soconno subxaanahu wa tacaala. wabihi xayaatu ruuxi walabdaani, nolosha jirhka iyo nolosha nafta ku jirta oo ilaahay geliyay subxaanahu wa tacaala. sidaa daraaddeed ikhwaani fillaah, nebi muuse calayhi salaam ilaahay buu baryay jala jalaaluhu, wuxuuna ilaahay weydiistay sidan soo socota. wuxuu yidhi nebi muuse calayhi salaam: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. nebi muuse calayhi salaam wuxuu leeyahay, rabbow adduunkan waxaad noogu qortaa wanaag. waktub lanaa fii hadihi dunya xasana, ilaahu adduunyadan dhexdeeda ilaahu wanaag noo qor oo wanaag nagu sii buu yidhi. wa fi laakhirati, sidoo kale aakhirana ilaahow xasano iyo wanaag noogu qoroo nasi. ilaah baa u jawaabay subxaanahu wa tacaala, wuxuu ilaahay yidhi: qaala cadaabii usiibu bihi man ashaau waraxmatii wasicat kula shay. cadaabkayga ciddii aan doonaan ku asiibaya. marka cidda ilaahay cadaabkiisa ku asiibayo waa cidda mutaysatay, waa cidda doonatay, waa cidda asbaabtii cadaabka la timid, kuwaasaa ilaahay ku asiibaya subxaanahu wa tacaala. wa raxmatii wasicat kula shay, naxariistayduna waxay u waasac noqotay shay walbaba allah yidhi subxaanahu wa tacaala. markaasaa ilaahay nebi muuse wuxuu u sheegay cidda xasanada adduunyada iyo aakhirada allah uu qorayo subxaanahu wa tacaala cidda ay tahay. wuxuu ilaahay yidhi: fasaaktubuha liladiina yattaquun wayu'tuuna الzakaah wاladiina hum biaayaatina yu'minuun. waxaan u qorayaa, fasaaktubuha ay saaktubu hadihi alxasana fi اdunya wa alxasana fi اlaakhira. waxaan u qorayaa aladiina yattaquun, kuwa ilaahay ka dhowrsoonaanaya subxaanahu wa tacaala, wayu'tuuna الzakaah, zakadana bixinaya, wاladiina hum biaayaatina yu'minuun, kuwa ilaahay aayaadkiisa rumaysan subxaanahu wa tacaala. waa suuraة اlacraaf, qisadii reer bani israa'iil gebageba markay kusii dhoweyd weeyaan. ilaahay waa sii caddeeya haddana: aladiina yatabicuuna arasuula الnabiya اlumiya aladii yajiduunahu maktuuba cindahum fi اtawraati wاlinjiili ya'muruhum biاlmacruufi wayanhaahum can اlmunkar wayuxilu lahum الطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaaئiثa wayadacu canhum israhum wاlأglaal alatii kaanat calayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بو الله يدي سبحانه وتعالى. بل أفر صدى إخواني في الله، افتينك قرآنك صدو إنه افتيمين أيه دادك حسنة آخرة إي حسنة الدنيا ده هلية. الحسنة في هذه الدنيا وحوي الصحة والزوجة الصالحة والذرية الطيبة والسمعة الحسنة بين الناس. وحوي حسنة أدونك
gabadh wanaagsan oo Allah ku siiyo caruur wanaagsan oo Ilaahay ku siiyo waji fiican oo Ilaahay dadka ku dhaxgaliyo sumco wanaagsan oo dadka ku dhax yeelato cizo iyo sharaf adduunyo midu insaanku baadi goobo ee uu jecel yahay xasana fi dunya baa la yiraahdaa wal xasana fi aakhirana waa jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku naxariisto jannadiisa ku galiyo raali ka noqdo weeyaan haddaba yaa inoo cadaynaya ikhwani fillah xasanadaasi aakhirada iyo tan adduunyadaba yaa inoo cadaynaya cidda helaysa iyo sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin quraanka inoo cadaynaya waxaana taasi kamid tahay min anwaari alqur'aan wa quraanka iyo anwaartiisa iyo nuurka aynu markaa iftiinsanayno weeyaan oo qofka ka maqan xaqiiqatan oo mugdiyaad uu ku jiraya markaa mugdiga fikriga ayuu ku jiraya mugdiga caqiidada ku jiraya mugdiga siyaasadda ku jiraya mugdiga dhaqaalaha ayuu ku jiraya ama ida istanaara bihada alqur'aan hadii qur'aankan uu iftiinsado falaa shaka walaa rayb annahu sayakunu cala siraat almustaqiim jidkii toosnaa buu haynaya walidaalika baa allah subxaanahu wa tacaala markuu sheegay cidda uu qorayo xasanada adduunka iyo aakhiro wuxuu sheegay intaasoo sifo kow aladiina yattaquun kuwa ilaahay ka baqanaya labo wayu'tuuna zakaa zakada bixinaya saddex waladiina hum biaayaatina yu'minuun kuwa aayaadka iyaga rumaynaya sifaadka inta kale ee ilaahay xasanada iyo wanaagga u qorayo xalqada kale aynu ku qaadanayna ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala allah naga aqbalo kuwii qur'aanka iftiinsadana allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh إذا آمنت يا إنسان بربك منزل القرآن تجد حظا من الرضوان قراءته تزودنا بطاقات تحررنا عن الأهواء تبعدنا من النيران تنقذنا عن الأهواء تبعدنا من النيران تنقذنا